السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي مeel baa joogtaan iyo si walba inoo maqlaysaan waa idin salaamayaa maanta waxaa rabaa survey ku saabsan dadka maalintii cadeysto laba jeer iyo wix ka badan oo caruur iyo dumar iyo rag intaba ku jiro oo daraasaad la sameeyey oo aan rabo inaan idin soo gudbiyo surveygan wuxuu ku saabsan waa epidemiology ka wax la dhaho oo data oo international lagu sameeyey wadamo badan oo caalami ah sida Mareykan iyo Yurub iyo maxaa la dhahay wadamadaas ayaa lagu sameeyey ilaa 43 wadan ayaa lagu sameeyey daraasaadkan caruurta ayaa ku bilaabi doona da'doodu tahay 13 jir ilaa 14 jir ilaa 15 jir ka hooseyso teenagerka maxaa lahaay waxaa lagu marka inta da'dooda ka hooseyso caruurta intaas ee da'dooda ka hooseyso 13 jir 14 jir ilaa 15 jir ayaa daraasaadkan lagu sameeyey oo qaybta hore iyaga lagu soo qaatay ayaan soo sheegi doonaa oo Mareykanka iyo Yurub saashado sheegnay ay maartay hay'adda loo yaqaan WHO ama World Health Organization ayaa daraasaadkan sameysay intaas wadan oo aan soo sheegnay 43 wadan ayayna ku sameysay haddaba daraasaadkan caruurta lagu sameeyey waxay gaarayaan ilaa 200 milyan oo caruur ayaa lagu sameeyey marka waxaa wadanka koowaad soo galay wadanka ugu horeeya daraasaadkan lagu sameeyey tirada ugu badan helay waxa waaye wadanka Switzerland waxa uu helay boqolkiiba 65 caruurta cadeysto 2 ilaa 3 jeer in ka badan maalintii weliba reedka ugu badan ay heleen gabi ahaan haddaba waa la kala qaaday markii aan hore soo sheegay surveyskan epidemiological wax la ama epidemiology waa marka daraasaadka la sameeyo group ayaa loo sameeyaa haddaba waa la kala qaaday group ayaa loo kala qaaday groupkaas loo kala qaaday ayaan kala sheegaynaa gabdhaha waxa ay noqdeen ay wiilasha loo kala saaray gabdhaha maadaama wadankan Switzerland uu galay gabdhaha boqolkiiba 9 ayay keensadeen oo da'doodu ay gaarayso 13 jir 14 jir ilaa 15 jir boqolkiiba 9 ayay keensadeen halka wiilasha ay keeneen boqolkiiba 76 boqolkiiba ay keeneen oo caruurta marka laakiin wadanka ugu hooseeya oo lowest rate waxa keenay wadanka Turkiga oo dhanka ciyaalka yaryar ayaan sheegaynaa boqolkiiba 50 gabdhaha ayaa keensaday boqolkiiba 26 wiilasha ayaa keenay marka gabi ahaan qaybtan waxaa loogu talagalay caruurta ayaa daraasaadkan lagu sameeyey qaybta dadka waaweyn ayaan geli doonaa meeshaas dadka qaar challenge oo arki doonaan laakiin aysan tahay wax xaqiiqo ah yaa ku wanaagsan maalintii cadeysiga 2 mar iyo wix ka badan laba mar wix ka badan dadka waaweyn cadeysiga ku wanaagsan oo si aan soo sheegno tan waa international survey la sameeyay wadamada Mareykan iyo America wadamada Mareykan iyo aan dhaho Yurub lagu sameeyay ay daraasaadkan tahay marka waxaas leeyahay wadanka koowaad haddii wadamadan lagu soo dari lahaa inta soo laaban daraasaadka haddii Africa iyo Asia lagu dari lahaa Carabta xitaa iyo inay isku mid ahaa lahaayeen daraasaadkan because mar walba waxaas leeyahay dumarka way ku wanaagsan yihiin nadaafadda haddaba aan bal tixraacno dumarka sidee ugu wanaagsanayeen nadaafadda wadamada lagu sameeyey wadanka ugu horeeyo waxaa noqday surveygan dadka cadeysto 2 mar iyo in ka badan da'da weliba 35 ilaa 44 da'daas oo ah 35 ilaa 44 dadka waaweyn dadka 2 mar in ka badan maalintii cadeysto waxaa kaalinta koowaad galay wadanka Sweden ayaa kaalinta koowaad galay waxayna ku galeen boqolkiiba 80 ayay la imaadeen halka kaalinta labaad oo galay wadanka UK ama Great Britain boqolkiiba 75 ayay la imaadeen iyagana oo ay ku jirto wadanka Scotland oo iyaga ay raacsan yihiin
sidoo kale wadanka kan saddexaad gale waa Denmark oo boqolkiiba 68 keenay. waxaa kaalinta saddexaad ama afraad galay wadanka Finland oo asigana boqolkiiba 63 kala imaaday. haddaba surveygan group markii epidemiological la dhaho group ayaa loo kala qaadaa, group ayaa loo sameeyaa. marka waxaa la sameeyay nimanka dumarka iyo ragga ayaa loo kala qaaday oo yaa kaalinta wanaagsan ima keensaday. dumarka ayaa kaalinta koowaad galay, waxa ayna keeneen boqolkiiba 80 meesha ugu sareyso, meesha dhexe boqolkiiba 70, meesha ugu hooseyso boqolkiiba 50. haddaba ragga xagee galeen? ragga meesha ugu sareysa boqolkiiba 60, meesha ugu dhexdhexaysa ugu macquulsan waxay galeen 50, meesha ugu hooseysana 40. soo waxaad dareemaysaa meesha ugu hooseyso dumarka waa 50, 40 ma gaarin bay 40 waa ka sareeyaan. waxa 50 ka hooseeya waa ragga. marka meesha waa kala fiican yahay dumarka iyo nadaafadda afka nooga wanaagsan. daraasaadkii la sameeyay wadamadaas oo dhan boqolkiiba 80 meesha ugu sareyso ilaa meesha ugu hooseyso 50 waa dumarka. ragga meesha ugu sareyso waa 60 ilaa meesha ugu hooseyso boqolkiiba 40. daraasaadkan waa daraasaad xilli hore la sameeyay oo ah soo qaatay. kuwa ugu dambeeyay waa soo qaadan doonaa sidoo kale. kuwa ugu dambeeyay ayagana daraasaadka halkaan marka u dhimaano waxay leeyihiin waxaan soo qaadan doonaa qaybo kale oo ah مثلا dadka maaragtay waxaan ka bilaabi doonaa findhicilashada wax Soomaalidu iyo qanamaqan dadka qaar anaga xamar soo noqona findhicil oo noqona flossinka ma qanadiis u taqaan kulliyahay oo lahjada meeshaada looga hadlo lahjada looga hadlo noo soo sheeg. Soomaalida findhicil oo taqaana in afka loo isticmaalo hadda waa la hormaray oo kore findhicil waxa loo aqoon jiray in qoryaha iyo istakiinka waxaas loo isticmaalo. laakiin anaga hadda maadaama dental hormaray waxa loo isticmaalaa dun. hadda gaar waxay yaqaanaan dun flossinka boqolkiiba 41 dadka maalintii hal jeer flossinka isticmaalo oo ilkaha findhicishto waa boqolkiiba 41. dadka maalintii isbuucii marmar findhicishto amba isticmaalo flossinka waxa waaye boqolkiiba 24. halka bishii dadka marmar isticmaalo flossinka waa boqolkiiba 12. sanadkii dadka lifdhif isticmaalo waa boqolkiiba 5. boqolkiiba 20 ma isticmaalaan. adiga kuwa ku jirta talosiigu soo sheeg. haddaba dadka aanan dhakhtar tagin ba ilkooda aan dhakhtar marnaba soo fiirin ilkooda dhakhtar aan tagin boqolkiiba waa imisa. meesha ma la kala saarin laakiin gadaal la kala saari doonaa dib ayaan kala saari doonaa. boqolkiiba 28 sanadkii hal mar ayay tagaan dhakhtar ay soo booqdaan. boqolkiiba 25 6 bilood mar ayay tagaan. maxaa la afartii biloodba mar markii sanad 4 loo qaybiyo waxaa 22 ayaa dadka taga dhakhtarka ilkaha. 5 sano ilaa iyo 10 sano 12 ayaa tago. 10 sano waxaa tago 12. haddaba halkaan waa meesha maaragtay dumarka in nadaafadda nooga fiican yahay lagu ogaa karo. dantalada daraasaadka sameeyay oo dhan oo kuwa ugu dambeeyay oo latest aan soo qaadanay oo latest ugu dambeeyay ah age-ka 35 ilaa iyo 44. dadka aanan ilkahooda suuska ka daweynin aanan ilkaha suuska ka daweysanin oo suuska ilkahooda ku dhaafto da'dan waxaa ugu badan ragga oo aan ilkaha suuskooda ka daweynin boqolkiiba 29 ay noqdeen. halka dumarka boqolkiiba 25 ay noqdeen. marka meeshan waa naga la fiican yahay. dumarka ayaa naga yar markii aan la fiiriyo dadka aan marnaba iska daweynin suuska amba afka aan daweysanin. da'da 35 ilaa 44
dadka macnaha ilkaha aan dad ilka laga saarin ilkana aan laga saarin ama xanuun ku yimaada ama suus ku dhacay aan ilka laga saarin boqolkiiba waa 30 iyo labo waa dumarka boqolkiiba 30 waa ragga soo meeshaan oo nagala fiican yahay haddaan qof aan ilka laga saarin dadka u badan waa dumarka oo 32 boqolkiiba raggana waa 30 soo halkaan oo nagala fiican yahay maadaama cadaysiga ugu fiican yihiin ayaa halkaan ugu fiicnaadeen haddaba dadka ilkaha dhan ka wada dhacdaan markii ay duqoobaan ageka 65 ilaa 75 boqolkiiba dumarka ayaa inta ku badan maadaama oo dad cudurro badan ku dhaco dhalmada iyo waxyaabahaas oo dhan ay saameynayso immune systemkooda maybe meeshaas ayay leeyihiin dadka qaar meeshaan ay ugu bateen 27 ay noqdeen halka 24 rag ay noqdeen ragga waa ka caafimaadkooda iyo immune systemka iyo ageka marka la gaaro waxaan maleynaa dumarka maadaama dhalmada iyo caadada iyo waxyaabahaas oo dhan inay saameyn ku yeelanayso halkaas darteed ay nooga bateen nadaafadda maan halkan ay leeyahay marka percentage-ka dadka ku dhaca cudurrada ciridka dhiiga ciridka infection ku dhaca waxyaabahaas oo dhan ragga ayaa ku badan iyadana oo boqolkiiba 52 halka dumarka leeyihiin 45 boqolkiiba soo meeshaan maadaama dareemaysa nadaafadda inay ku fiican yihiin halkaan ku fiicnaadeen taas ayaan cadeynayso oo cadeyn ka dhigayso inay dumarka ugu fiican yihiin cadayga 45 noqdeen dadka maaragtay ilkahooda maaragtay cudurrada ciridka ku dhaco boqolkiiba 45 ragga ayaa ku badan oo boqolkiiba 52 ah meeshana waxaa dareemay in nagala fiican dadka baxo iyagoo aan cadaysanin dadka iyaga oo aadan caday afkooda saarin ka baxo guryahooda 12 saacadood walbo waxa ay gaarayaan 46 boqolkiiba dadka maalintii oo dhan 24 saacadood kadib aan cadaysanin waxay gaarayaan boqolkiiba 31 dadka 12 dadka 2 maalin kadib cadaysto mar waxay gaarayaan 12 labadii maalinba mar cadaysto dadka 3 maalin mar cadaysto 4 ay gaarayaan boqolkiiba ma badno dadka 5 maalin 4 maalin u dhaxayso cadaysto boqolkiiba 2 ay gaarayaan 6 maalin 7 maalin isbuuc iska dhexdood cadaysto isbuuc hal mar yaa raxmaan waxay gaarayaan boqolkiiba 2 kastoo badneen boqolkiiba 7 boqolkiiba 3 toddobaad wixii ka badan ay gaarayaan intaas iyagana marka kuwaan waxay soo xasuusinayaan Etoobiyaanka oo aanan aad u cadaysan cadayga aad ugu yar yihiin ay soo xasuusinayaan oo aad odorahooda xun yahay iyo Hindida sidoo kale marka kuwaas yihiin China qaarkood marka adiga kuwa taataan Etoobiyaanka wadankooda markuu noolaayay dadka cadayga aad ugu liito waaye dadkaas ay soo xasuusinayaan Hindida oo personal hygiene aad ugu liitaan waxaan gelina daraasaadka ugu dambeeyay oo maaragtay la soo sameeyay dumarka iyo ragga loo kala qaaday waliba oo maalintii cadaysto 1 jeer 2 jeer iyo wix ka badan dumarka waxa ay noqdeen daraasaadka ugu dambeeyay oo cadaysta boqolkiiba 28.7 ayay noqdeen percentage ahaan qada walbo tan waxaa leenahay dumarka iyo ragga dadka cadaysto raashin walba gadaashiis مثلا qadada quraacda cashada dabadeed cadaysto mar walba ayaa daraasaad lagu sameeyay iyagana oo kuwa ugu dambeeya yani markay quraacdaan cadaysanay markay qadiyaan cadaysanay markay cashayaan cadaysanay boqolkiiba 28.7 dumarka ayaa noqday halka ragga raashin walba dabadeed cadaysto ay noqdeen boqolkiiba 20.5 ay noqdeen soo halkaan oo nagala fiican yahay dumarka ayaa nooga wanaagsan sidoo kale dumarka dentistaha tago kuwa horaan soo sheegnay kuwa ugu dambeeyay dentistaha tago boqolkiiba 89.2 ay noqdeen halka ragga ay noqdeen ragga dentalka tago ama dhakhtarka u tago boqolkiiba 74.6 ay noqdeen soo meeshaan way nooga fiican yihiin dumarka daraasaadkii oo soo qulaaseynay intaas ayaan kusoo afmeeraynaa marna aad ugu sii fogaano والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.